السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليال سو دوادا waxaan dhawaan wadanka soo gaarsiinay mashaariic greenhouse oo aad u tiro badan oo aan ka soo rarnay wadanka Turkiga annagoo u soo iibinay macaamiil Soomaaliyeed oo ilaa Muqdisho iyo Hargeysa kala jooga haddaba maanta muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa laba container oo aan dhawaan ka soo dejinay marsada ama dekada Berbera halkaas oo aan markaa aan ugu wareejinay macaamiishii aan uga soo iibinay wadanka Turkiga insha Allah muuqaalkan gudihiisa waxaan rabaa qaabka aan greenhouse-ka dalka Turkiga aan idinka soo iibin karno inaan idinkaga warbixiyo macaamiishan u adeegnay adeegan u qabanay qalabkii iyo agabkii aan u iibinay inaan halkan idinkula wadaago sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo qaabka aad idinka laftirkiinu aad u hirgelin lahayd isla mashaariicdan oo nooc dhaqaale badan iyo faa'iido badan laga helo uu ka mid yahay ganacsiyada arrimaha beeraha la xiriira haddaba intaynu guda gelin walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaad marka koowaad muuqaalka aad like saartid waxaan halkan rabaa inaan marka koowaad aan idinkula wadaago dhowr qaybood macaamiisha aan u soo adeegnay greenhouse-yadan ayaan rabaa inaan muuqaalka qayb ka mid ah ku soo qaato sidoo kale shirkadda inoo filisa qaybta iibkeeda gudoomiyaheeda Maxamed Cabdiraxmaan ayaan isagana muuqaalkan aan qayb kaga soo qaadan doonaa wadanka Turkiga markaa shirkadda suuqa Turkiga uga soo iibisa greenhouse-yada waxaan markaa walaalayaal sidoo kale idin la wadaagi doonaa halka aad xogtii aad ka helaysaan oo dadkani ay hore u iibsadeen PDF-kan uu ku qoran yahay dhammaan qiimayaasha ay isla macaamiishan ay ku soo gateen greenhouse-yadan oo ay ku qoran tahay soo qaadistooda cashuurtii kaargooga soo rarista hawshii oo dhan ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo xafiisyada Istanbul halkaad uga soo hagaagaysaan markaad mashaariicdan la idin soo iibinayaan noogu imaan kartaan sidoo kale Hargeysa marka la idin rarayo halka aad ka raranaysaan ayaan rabaa iyadana inaan idinku tilmaamo muuqaalkan insha Allah walaalayaal inta markaan iska leexino waxaan mashruuca koowaad laba nooc oo greenhouse ayaan meeshan ku soo iibinay ama aan ku soo rarnay qaybta koowaad waxay tahay walaalayaal mashaariic aad u tiro badan waan u soo iibinay mashruuc beer aad iyo aad ma sha Allah u weyn oo duleedka Hargeysa ku taala oo 15 hektar ah ayaan waxaan u soo gadnay greenhouse agabkoodu marka uu dhameystiran yahay qalab ahaan greenhouse-yadan ayaa ka koobnaa birihii galvanizerka ahaa caagagii qudaarta lagu qaadayay shabagii lagu dadayay beerta greenhouse-ka shaynetka loo yaqaanay hadduu ilaahay ku roon yahay tuubooyinkii iyo systemkii waraabka drip irrigation-ka hadduu ilaahay ku roon yahay wax allaale wixii agab uu markaasi mashruucaasi u baahnaa ayaa waxaan uga soo iibinay oday cali oo ka mid ah xaaji ganacsade reer Sacuudi Arabia ah oo wadankiisa inuu maal gashto ugu soo laabtay ayaa waxaan ula kalahnay magaalada Hargeysa ka wada baxnay annagoo aroota u kalahnaysan dekada Berbera markabkii aan uga soo saarno qalabkiisii beeraha greenhouse-ka markaa hirgelinayay waxaan rabaa inaan muuqaalka qaybtan aan ku soo dhaweeyo xaaji cali oo ka warbixinaya alisayda annagoo markaa ku soconna dekada Berbera oo aan qalabka markaa aan uga soo raraynay ku soo dhawo xaaji cali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو جوجنا قبلك بربرة ساحل بانو جوجنا وحنو سوينا مراكب تيبا ونوسو دكتي يعني كنتينا رضا يقرين هوسادة كدتشينينا آدي آد بانو وناكسناي إذن كنا سيدا سوكلا إن شاء الله بانو دين هتشينينا ديور كانو دين شيئينا وانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا والله يلساد أركتان markaan xaaji cali halkaas ka raacnay waxaan u tagnay containerkiisii greenhouse ugu rarnaa oo markaa isagu keligii u soo rartay maadaama greenhouse badan ay ahaayeen isla markiiba cashuurtay hawshii cashuur dhaafka loo sameeyay wuxuu halkaa ku daabushay saad aragtaan gaadiidkii beertiisa u geynayay oo aan qalabkii oo haba yaraatee package garaysan oo nadiifa oo marka uu tayadooda xataa uu yiri Sacuudiga birtan oo kale saa u dhalaalaysa ee aan qoraxdu karayd iyo shay netkan package garaysan ee bacda lagu soo duuduubay iyo qalabka tayadiisa uu aad iyo aad uga mahad sheegtay isla markiiba nagala wareegay halka marka uu la aaday mashruuciisa oo marka uu diyaarsan in laga hirgeliyo dhawaana insha Allah qudaarta laga soo saari doono
waa macmiilka koowaad oo naga adeegtay ilaahayna aan rajaynayno inuu mashruucooda u barakeeyo kadib markii ay iibsadeen PDF-kan $30 ah waa PDF $30 ah oo qofkii mashruucan maal gashanaya mashaariicda qiimayaashoodii iyo cabirkii iyo qalabadii greenhouse-ka muhiimka u ahaa mashruucan xarka waxaa jirta qudaarta lagu qabto qudaartu waa qudaar dhaadheer oo intermediate la dhaho oo 2 mitir gaadhaysa xarkihii baa ka mid ah maqasyadii dhirta ma aragtay seen biyaha badan isaga laasan lagu jarayay pruning equipment-kii oo kale ka mid ah caagagii qudaarta lagu qaaday ayaa ka mid ah birihii oo cabiro kala duwan leh ayaa ka mid ah wixii oo dhan waxay ku qoran yihiin PDF-kan aad aragtaan oo aad ka iibsan kartaan WhatsApp-kan shaashada ku qoran WhatsApp-kan ayaad ka iibsan kartaan oo aad ka soo dalbanaysaa oo aad ku soo diraysaa $30 kabacdi waxa insha Allah isla markiiba lagu soo dirayaa PDF-ka qaab WhatsApp ah ama email ah ama dadka Europe jooga oo aan markaa يعني linki toosan xagga comment-ka koowaad oo soo dhigayo ay ka gadan karaan waa $30 qofkii raba inuu mashruucan bilowdo PDF-kaas qiimaha ka soo arkaya ka bacdi waxaan ku soo dhaweynaynaa xafiiskayaga Istanbul halkaas uu ku soo dhaweyn doono gudoomiyaha Safari Enterprise mudane Maxamed Cabdiraxmaan oo hadda koor aad arkayseen isagoo mashaariicda markaa ka soo raraya caasimadda ganacsiga ee Turkiga Istanbul isagoo dhawaan soo gaaray magaalada Berbera oo halka uga wareejinayay greenhouse-yada qaybteedii labaad waan u soo adeegnay oday Siciid oo reer Burca ah isagana greenhouse-yadiisa halkan aynu kula wadaagi doonaa mashruuciisa iyo sawiradii iyadoo markaa looga rarayo xafiiskayga Hargeysa intaana markaa walaalayaal gudagelin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Maxamed Cabdiraxmaan sidoo fariintiisa halkan uga dhiibto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan macaamiisha sharafta leh la socodsiinaynaa maanta inay cashuurteedii socoto iyo dejinteedii konteynaradii isbuucan kuwaas oo kala duwan dhinaca Puntland Somaliland iyo sidoo kale Kenya DDS waxaan macaamiisha sharafta leh la socodsiinaynaa in si isbuuclaha ay Istanbul uga soo rarmayaan alaabuhu sidoo kale dhawaanna ay bilaami doonaan wadanka China iyo sidoo kale Dubai sidoo kale waxay ka helaysaa macaamiisha sharafta leh magaalada Istanbul in sidoo kale looga soo raro dhinaca Kenya in looga soo raro si joogto ah oo diyaarad iyo sidoo kale markab badan marka waxaan leenahay macaamiisha sharafta leh soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka walaalayaal halkan waxaad ka aragteen waa gudoomiye Maxamed Cabdiraxmaan oo Istanbul jooga markana dekadii Berbera macaamiishii uga adeegaya oo markaa greenhouse-yadii uga raraya xafiiskaygu haddaba walaalayaal Hargeysa dad badan baa ay soo weydiiyay qaybta greenhouse-yada iyo beeraha noo qaabilsan shirkadda suuqa Turkiga iyo Safari Enterprise wuxuu ku yaalaa Geresh aw Cali marka wax yar kor loo dhaafo oo kaalinta nirig la marayo ayaa midig loo galaya midig marka cabaar loo galo iskuulada intaan la gaarin Nuruddin ayaa haddana midig loo sii yara xeroonaya halkaas oo lagu dejiyo qalabka greenhouse-ka ee macaamiisha markaa loo soo adeego ayaan macaamiilkan oday Siciid oo Europe ka yimi aan uga rarnay anagoo markaa Burco ugu jihaynay mashruuciisa oo ka koobnaa dhowr mashaariic oo kala duwan oo greenhouse nooca ah biraha wadan ah ee biraha ah kuwaas oo qiimahoodu aad iyo aad u naasilan yahay waxaad aragtaan gaarigan sida containerka oo kale ayaan qalabkiisii markaa isaga oo package garaysan oo mid kasta uu bacaysan yahay shay nedkii aad arkayseen waxaan ugu soo duubnay bac si aan in xariijin u gaarin saad halka ka aragtaan oo nimanka shaqaaluhu rarayaan waxaad aragtaan tuumbooyinkii drip irrigation-ka ahaa waxaad aragtaan xarkihii qudaarta lagu qabanayay waxaad aragtaan maqasyadii mashaariicdii oo dhan oo sticker ku dhagan yahay oo mashruuc kasta iyo qalabka u gaarka ee markaa lala dhisayo sumad gaar ayaa loo sameynayaa si ay isugu dhex khaldamin waxaad aragtaan mashaariicda oo markaa oday Siciid ku gaadhay magaalada Burco oo gurigiisa u dhex taala Ilaahay ha u barakeeyo Ilaahay mashruuc naajixa ha uga dhigo waa qaybtii labaad waa greenhouse-yadii bilaabiraha ahaa oo isagana aan u soo adeegnay haddaba walaalayaal qof kasta oo raba inuu mashaariicdan hirgeliyo waxa uu ka soo dalban karaa linkiga ugu hooseeya WhatsApp-kayga sakari ahaana uu ku qoran yahay marka ay PDF-ka ay gataan oo aan Hargeysa iyo Istanbulba iyo Muqdishoba aan ku soo dhaweynayno
annagoo markaa waddanka Turkiga uga soo iibinayna oo qofka qalabkiisii markaa u soo rarayna tracking numberkii siinayna waddankiina ku wareejinayna marka la keeno oo dekadii uga soo saarayno ayaan insha Allah diyaar u lanahay waxaa dad badan soo weydiiyeen mashaariicda greenhouse-ka waa dhul kooban oo aad qudaar badan ku soo saari kartid yaanyada intermediate-ka loo yaqaan aadka u dhaadheer khiyaarka barbarooniga يعني ubaxyada strawberry waxyaalo badan baa greenhouse-ka gudihiisa sida spinach-ka lagu beeraa oo caan ay ku tahay biyahana waa loo control karaa shaqaale kooban ayaa ka shaqeyn kara aad buu faa'iido badan yahay waa guri beereed xifdisan waa nidaamka casriga ah ee adduunka maanta wax loo beero ee loo guuray insha Allah qof kasta oo rabo inuu mashruucan hirgeliyo WhatsApp-kan walaalayaal ha ka soo dalbado isagoo markaan lacagta ku soo diraya qaababka ku qoran shaashada $30 markuu iibsadana insha Allah waxaan diyaar u nahay inaan la hirgelino una qiimeyno mashaariicda greenhouse-yada ah intaan muuqaalkan la mid ku kulmi doono walaalkii Sakariya Cabdullaahi Cali waxaan kaga tagayaa fiidiyo kale oo greenhouse-ka la xiriiro oo halkan ka daawan kartaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.